murashax Cabdiraxmaan Axmed Jaamac Camaale Janaale oo kamid ah murashaxiinta xisbiga wadani uga tartami doona golaha deegaanka degmada Ceerigaabo gaar ahaan beesha Naaleeye Axmed ee baadhiga Bariga Haye iyo bihiina Samatar ayaa maanta munaasabad qada sharaf ah hotel Martisoor ugu qabtay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo waayeelka iyo waxgaradka beeshiisa waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay murashax Camaale Janaale oo uu mahad celiyay baadhiga soo xulay iyo waliba xubnihii beeshiisa ee uu tanaasulay waa qada sharaf aan u sameynay intii hawshu ay socotay intii la shaqaysay halka waxa fadhiya rag iyagu ii tanaasulay oo iyaguna aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo waxa kale oo fadhiya halkan Qurayshba waxbay ku kala abtirsan jirtay waxa weeye qoladii aan isku abtirsi ahayn marka labadii baadhina halkan waa ku dheeyihiin iyo qoladii abtiyaday marka aad iyo aad horta waad u mahadsantihiin marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa xisbiga wadani madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro anaga madaxweynuhu noo yahay marka labaad waxaan kale ugu mahadnaqayaa maadaama gudoomiye fiican noo soo magacaabay oo gudoomiye reer Ceergaabo kala yaqaana oo ah boqor beelaha Ceergaabo oo dhan matala marka idinkuna inta ka soo qada sharafta ka soo qabashay aad baad u mahadsantihiin waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Jiidal Cigaal Maxamed Xirsi iyo maayirka magaalada Biyo Guduud Xaaji Maxamuud Askari iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka beesha murashaxaasi soo xulatay oo tilmaamay sida ay isugu raacsan yihiin murashaxnimada Camaale Janaale halkan maanta waxa qada sharaf noogu sameeyay Cabdiraxmaan Axmed Jaamac baa noogu sameeyay waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow guul baan ku rajaynaynaa inaad soo baxdo xildhibaanada gobolka degmada Ceergaabo ka noqoto markaan halka yar ku sii durkana xildhibaanka dacalka maana soo qaban gudoomiye waanu soo xulnay musharax Cabdiraxmaan Axmed Jaamac oo ah musharax aanu beesheeda baadhiga iyaga bihiina Samatar Bariga Haye aanu u soo xulanay inuu musharax nooga yahay xisbiga wadani golaha deegaanka ee Ceergaabo wuuna ku filan yahay booska aanu u soo idmanay insha Allah taala dinkan iskama aanu soo saarine waa nin aanu kalsooni weyn ku qabno oo aanu soo xulay deegaanka inuu wax weyn u tari karo dalkana uu wax weyn ka qaban doono murashax iyaga Cabdiraxmaan Janaale aanu soo xulanay waanu insha Allah garab siinayna musharax waa soo dhaweynaynaa Biiro Axmed Jaamac Dirir waa soo dhaweynaynaa anagu waan naqaanaa inaanu naqaan weeye nin wax qaban kara weeye in mutacalima weyn inaan muddo badan xisbigana ka soo wada shaqeynay wadani buu ahaa waa nin aad iyo aad ugu qalma xildhibaannimadan maanta reerku u keenay ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Boqor Faysal Cismaan Baraag oo halkaasi ka cadeeyay in xisbigiisu si rasmi ah u qaatay murashax Camaale Janaale Cabdiraxmaan Axmed Jaamac Dirir oo loo garanayay Camaale Janaale oo u taagan inuu u tartamo golaha deegaanka murashaxa taasoo isugu jirta qada sharaf iyo dholatus uu tusayo inaanu ahayn nin cid la gudaya ama keligii wax fool eriyaya ee uu wato baadhigiisii iyo garabkiisii kale uu ka soo jeeday labadaba way fiican tahay qofka tartamaya inay dadkiisu soo xulaan way fiican tahay dadka inuu tuso inaanu cid la gudayn sida uu noo tusay iyo sida dunidu noo aragto labadaba waa u soo dhaweynay cid kasta ay khusaysana waxaan leenahay Camaale keligii ma socdo bahdiisii iyo beeshiisii buu wataa hal soo dhaweeyo hana la shaqeeyo ka xisbi ahaana waa soo dhaweynaynaa Sheekh Axmed Star TV magaalada Ceergaabo.